Assalaamu calaykum. Waa arrin muhiim ah inaad ka hortagto si aanay caloosha ku adkaan ama uusan kugu dhicin dhibaato dhinaca mindhicirka ama dheefshiidka. Taasna waxaad kaga hortagi kartaa adigoo cuna cunooyinka aynu maanta ka hadlayno. Cunooyinkan waa kuwa caloosha jilciya ee luqadda Ingiriisida loo yaqaano high fiber diets. sidaa daraaddeed haddaad joogtayso cunooyinka aynu maanta ka hadlayno waa midda kaliya ee aynu ku guulaysan karno si aynu uga hortagno calool fadhiga ama calool istaagga iyo dheefshiid xumada. intaa kadib daawadayaal waxaynu soo bandhigaynaa dhowr ka mid ah cunooyinka iyo cabitaanada dalkeena iyo caalamkaba laga yaqaano oo ay khubarada caafimaadku sheegeen inay u fiican yihiin guud ahaan caafimaadka caloosha. sidaa daraaddeedna dadka calool istaagga joogtada ah ka cawda iyo kuwa cilad caafimaad daro oo dhinaca dheefshiidka ay haystaanba waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan cunooyinkan soo socda. ugu horeyn cuntooyinka u wanaagsan dheefshiidka isla markaana ka hortaga waxna ka tara calool fadhiga iyo calool istaagga waxaa ka mid ah oo ugu horeysa koostada. koostadu waa caleen cagaaran oo la karsado oo cunno ahaan loo cuno waxaana luqadda Ingiriisida loo yaqaanaa spinach waxaana la rumaysan yahay in asal ahaanteedu ay ka soo jeedo dalka Iiraan laakiin meelo badan ayay dunida gaadhay oo hadda laga isticmaalaa. koostadu waxa ay leedahay nafaqo badan oo aad u baahan tahay maalin kasta waxayna u fiican tahay caafimaadka waxaana laga yaabaa inaanad jeclaysan laakiin waa il muhiim ah oo aad ka helayso iron, folic acid, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12 iyo macdanaha kale ah calcium, magnesium, fiber iyo borotiin. sidaa daraaddeed koostadu waxay u roon tahay dheefshiidka qofka waxayna ka hortagtaa calool fadhiga waxay kaloo u roon tahay dadka qaba gaaska iyo alsarka. cuntooyinka kale u wanaagsan dheefshiidka kana hortaga calool istaagga iyo calool fadhiga waxaa ka mid ah qaraha ama xabxabka qofba magac buu yaqaanaye waxa uu ka mid yahay khudaarta inoo soo go'da xilliga xagaaga waxaana lagu yaqaanaa dhadhan wanaagsan iyo midab qurxoon. sidaa daraaddeed dadka oo dhammi way jecel yihiin waxaana ku jira fiitamiino badan iyo waxyaabo muhiim ah oo caafimaadka jidhka aan looga maarmi karin. sidaa daraaddeed qaraha ama xabxabku waa midho faa'iido u leh jidhka waana midhaha ugu biyaha badan inta la og yahay waxaana lagu qiyaasaa 290% inuu biyo yahay. sidaasuu yahayna waxaa ku jira nafaqo kala duwan oo uusan jidhkeennu ka maarmi karin kuwaasoo kale ah vitamin A, vitamin B6, vitamin C, vitamin E iyo borotiino kala duwan. waxaa kaloo qaraha ku jira macdanta potassiumka oo unug walba oo jidhka uu ka mid yahay uu u baahan yahay. haddaba qaraha ama xabxabka waxa uu ka mid yahay cunooyinka u wanaagsan dheefshiidka waayo xabxabka waxaa ku jirta maadada fiberta ama buunshaha loo yaqaano taasoo dheefshiidka iyo mindhicirada caloosha u roon. dhinaca kalena digirta ayaa ka mid ah cunooyinka u wanaagsan dheefshiidka isla markaana ka hortaga calool fadhiga ama calool istaagga. haddaba digirtu waxay ka mid tahay dhirta qaniga ku ah nafaqada iyo borotiinka ee firileyda taasi oo ka baxda meelo badan oo dunida ka mid ah. gebi ahaanna dhirta geedaha digirtu waa mid dhasha sanadkii hal mar taasi oo u baahan cimilo iyo biyo kala gedisan. waynu naqaanaa digirta waa midho yaryar oo adag oo qalalan oo midabo kala duwan leh taasi oo ku salaysan cimilada iyo deegaanka iyo nafaqada geedka. haddaba digirtu waxa ay ka mid tahay cunooyinka u wanaagsan caafimaadka dheefshiidka waayo digirtu waxa ay ka mid tahay baalaleyda waxaana ku jira waxyaabo badan oo u roon caafimaadka dheefshiidka. sidaa daraaddeed digirtu way sahlantahay in calooshu ay shiiddo waxayna ka hortagtaa calool fadhiga waxay kaloo hoos u dhigtaa kolestaroolka waxay kaloo yaraysaa halista cudurrada wadnaha iyo kacsanaanta sonkorta. dhinaca kalena baamiyaha ayaa ka mid ah cunooyinka sare u qaada caafimaadka dheefshiidka isla markaana waxa uu ka hortagaa calool istaagga ama calool fadhiga. sidaa daraaddeed baamiyaha luqadda Ingiriisida waxaa lagu yidhaahdaa okra badanaana waxaan ku darsanaa suugada waana la karkariyaa ama sidiisa ayaa loo cunaa. waxaa kale uu leeyahay dhereed jiidjiidmaya waxaanuu ka mid yahay geedaha daawada leh ee cilmi baadhista lagu sameeyey. sidaa daraaddeed geedkan baamiyaha waxa uu ka mid yahay dhirta ubaxleyda
wuxuuna ka tirsan yahay qoys dhireedka loo yaqaano Malaw. Sidaas oo tahayna muran ayaa ka jira halka uu baamiyuhu asal ahaan ka soo jeedo, waxaana isku haysta dalka Itoobiya, dalalka Afrikada Galbeed iyo dalalka qaaradda Aasiyada Koonfureed. Baamiyuhu waxa kale oo uu ka baxaa dalalka kuleyl xigeenka ah iyo gobolada cimiladoodu diiran tahay ee caalamka. Sidaas oo tahayna baamiyaha waxa la ogaaday jiritaankiisa muddo haatan laga joogo 3500 oo sano ka hor. haddaba baamiyuhu waxa uu sare u qaadaa caafimaadka dheefshiidka, waayo baamiyuhu waxa uu wanaagsan yahay dheefshiidka, calooshana waa uu jilciyaa, mindhiciradana waxa uu ka caawiyaa qashinsaarka, waxa kale oo uu ka hortaga babaasiirta. dhinaca kalena cuntooyinka kale ka hortaga calool istaaga iyo calool fadhiga isla markaana caafimaadka dheefshiidka sare u qaada waxa kamid ah sisinta. sisintu waxay ka mid tahay dalagyada dalkeena ka baxa, waxayna aad uga baxdaa koonfurta Soomaaliya, waxayna aad muhiim ugu tahay caafimaadka, waxaana laga helaa nafaqooyin kala duwan. sidaa daraaddeed saliid macsarada oo loo yaqaano boqorada saliidaha ayaa sisinta laga shiidaa, cunno ahaan ayaa sisinta loo cuni karaa, cabitaan ahaanna waa loo qastaa sisinta. haddaba sisintu waa midhaha ugu qadiimsan ee saliid laga dhaliyo ee bini'aadamku bartay muddo aad u fog, waxayna ka bixi jirtay meelo badan oo dunida ka mid ah muddo haatan laga joogo 5,000 oo sano ka hor. sidaa daraaddeed dalagga sisintu waxa uu taariikh u leeyahay awooddiisa iyo inuu ku koro dhul ay adag tahay inay ku baxaan midhaha kale ee la beertaa, waana dalag adag oo kaalmo badan uga baahnayn beeralayda. sidaa daraaddeed waa midhaha ku kori kara lamadegaanada, sidaasay tahayna sisinta waxaa loogu yeedhaa midhaha badbaadada. intaa kadib daawade, sisintu waxa ay sare u qaadaa dheefshiidka, waxayna dhaqaajisaa murqaha mindhicirka, waxayna ka hortagtaa calool fadhiga iyo calool istaaga. cuntooyinka kale u wanaagsan caafimaadka dheefshiidkana sare u qaada waxaa ka mid ah dacarta. sidaynu wada ogsoonnahay dheefshiid xumada waxaynu ognahay inay ka dhashaan cudurro badan oo saameyn ku yeelan kara caafimaadka qofka. sidaa daraaddeed dacartu waxay kaloo leedahay faa'iido lala yaabo, oo qofka haddii uu shubmaayo way istaajinaysaa caloosha, hadduu qofka calooshu fadhiisatana way socodsiinaysaa. waxay kaloo daawo u tahay mindhicirada kacsan iyo xanuunada gaastariga, gaar ahaan boogaha caloosha. dacartu waxay kaloo caloosha ku yaraysaa bakteeriyada jeermiska ah, laakiin bakteeriyada nafciga la weydaynaysaa meesha daawooyinka loo qaatay infekshanka ay labada nooc ee bakteeriyaba dilayaan. sidaa awgeedna waxaa jira cabitaano kala duwan oo laga sameeyey geeddaaweedka dacarta. dhinaca kalena daawada cuntooyinka dheefshiidka wanaajiya waxaa ka mid ah raqayga ama xamarta. qofba magac buu yaqaanayay raqayga ama xamarta. waa midho dhanan oo ka baxa dhulka ay Soomaalidu degto, waxayna carabtu u bixiyeen tamar hindi, inkastoo isla magaciisa asalka ay u yaqaanaan xamar. ingiriiskana isla magacii carabta ayay u bixiyeen oo ah tamar hindi. taariikhduna waxay sheegtaa inuu asal ahaan raqayga ama xamartu ka soo jeedo bariga Afrika iyo jasiiradda Madagaskar, kadibna ay ku faaftay dalalka Suudaan, Masar, galbeedka Afrika ilaa iyo Hindiya, kadibna waxaa loo dhoofiyey jasiiradaha Caribbean-ka loo yaqaano ee ku yaala labada qaaradood Ameerika dhexdooda. haddaba raqayga ama xamarta boqolkiiba 18 waa aashito, gaar ahaan nooca liindhanaanta, waana waxa u yeelaya dhanaanka siyaadada ah. waxaa kaloo ku jira maadooyinka fosfor, magnesium, calcium, cusbada sodiumta iyo vitamin B3. haddaba haddaynu wax yar dul istaagno taariikhda raqayga ama xamarta, waagii hore boqortooyadii faraacinada ayaa sabab u ahayd inay ka dhoofiyaan dhulalka bariga Afrika, waxayna u isticmaali jireen daawo ahaan, gaar ahaan xanuunada ku dhaca caloosha. kadibna haddana waxaa daabulan jirtay boqortooyadii Furus oo ka talin jirtay dhulka maanta Iiraan loo yaqaano. kadibna dhakhaatiirtii carabta ee uu ka mid ahaa Ibnu Sina, Ibnu Baydaar iyo Raasi ayaa geedka raqayga ama xamarta faa'iidooyinkiisa ka hadlay iyo xanuunadii ay carabta iskaga daaweyn jirtay. waxayna sheegeen inuu mataga ka hortago, oonka u roon yahay, waxay kaloo ku daaweyn jireen xanuunada xameetida ku dhaca. intaa kadib raqayga ama xamartu waxa uu u roon yahay dheefshiidka, wuxuuna yareeyaa dibirada iyo hawada badan ee caloosha. geesta kalena cunooyinka kale u wanaagsan caafimaadka dheefshiidka waxaa ka mid ah filfisha. filfishu waa geed daaweed faa'iido leh oo dalkeena laga helo. filfisha waa midhaha geedka loo yaqaano black pepper. cunnada ayaa lagu darsadaa, daawo ahaanna waa loo isticmaalaa. asal ahaanna waxa ay ka soo jeedaa dalka Hindiya, weliba gobolada koonfureed. haddaba filfisha waxyaabo badan ayaa loo adeegsadaa, sida in cunnada lagu xifdiyo maadaama jeermiska cunnada ka dhasha ay disho. waxaa kaloo lagu carfiyaa cuntada, dhadhanna loogu yeelaa, waxaana ku jira waxyaabo nafaqo leh sida maadooyinka manganese, vitamin K, birta, macdanta,
Potassiumka waxay kaloo yareysaa hurka ama inflammation-ka loo yaqaan ee ku dhaca jidhka. sidaa daraaddeed filfisha waxa ay sare u qaadaa caafimaadka dheefshiidka, waayo filfisha waxa ay kordhisaa dheecaanka aashitada caloosha ee loo yaqaan hydrochloric acid, kaasoo muhiim u ah shiidista cuntada. waxaa kaloo lagula tacaalaa shubanka iyo calool fadhiga. waxay kaloo yareysaa hawada caloosha ku samaysanta iyo dibirada. waxay kaloo siyaadisaa kaadida iyo dhididka, kuwaasoo muhiim u ah qashinsaarka jidhka. haddaba ogow, haddii aad leedahay boogta caloosha ee gaaska, filfisha way kugu siyaadin kartaa xanuunka maadaama aashitada caloosha ay badiso. laakiin haddii aad leedahay dibiro iyo daaca badan iyo cuntada oo dhaqso kaaga bixi weyda ama daaca qurun, filfisha way ku anfacaysaa. dhinaca kalena kaarootada ama dabacasaha ama kaarowga qofba magac buu yaqaanaya ayaa ka mid a cuntooyinka ugu wanaagsan sarena u qaada caafimaadka dheefshiidka, waayo sida cagaarka kale ayay kaarootadu u wanaajisaa caafimaadka dheefshiidka iyo shaqada caloosha iyo mindhicirada qofka, waxayna ka hortagtaa calool fadhiga, taasoo yareysa halista babaasiirka. haddaba dabacasaha waxaa kale uu ka mid yahay cuntooyinka ay Soomaalidu taqaano lagana helo dhulkeenna. kaarotadu waxa ay leedahay faa'iidooyin badan oo aan ahayn kaliya inay aragtida indhaha wax u tarto, laakiin waxaan rajaynayaa inaad maanta ku baraarugtay inay caafimaadka dheefshiidkana sare u qaado. ugu dambeyntii, babayga ayaa ka mid ah cuntooyinka sare u qaada caafimaadka dheefshiidka, waayo babaygu waa faakiha aad u macaan lagana helo wadamo kooban oo tiradooda lagu qiyaaso 17 wadan oo kaliya, kuwaasoo ku yaala dhulalka kulaylaha. Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada farakutiriska ee babaygu ka baxo. haddaba babaygu wuxuu aad u yareeyaa aashitada caloosha. hadduu qofku leeyahay laabjeex ama boog xanuun, babaygu waa u daawo. wuxuu kaloo babaygu daawo u yahay dheefshiid xumada iyo dibirada iyo daaca qurunka.